waxaa jirta arkaanul iimaan. arkaanul iimaani sittatun wahiya arkaanul iimaan ama tiirarka iimaanka qofka muslimka ah waa 6 waxayna kala yihiin kow an tu'mina billahi qofka ilaahay inuu rumeeyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa uu rumeeyo 3 wa kutubihi kutubtiisa inuu rumeeyo 4 wa rusulihi rusushiisa inuu rumeeyo ilaahay rusushii uu soo diray 5 wa bilyawmi alaakhiri maalinka qiyaamaha inuu rumeeyo 6 والقدر خيره وشره من الله تعالى قدرت الله خير يا شر إنه ما يقفك واللحظة تير إيمان كقفك مسلم كاه حلقة واحد كويس 16 تير أو شنطة تير معناها تير الإسلام كاه إيو اللحظة تير إيمان كقفك مسلم كاه مركز قدرة وكوي 8 تير إحسان الإيمان وهل تير إحسان الإيمان واحد وهو إحسان الإيمان وهل تير وحنا ياي كو أن تعبد الله إلهي إن أدو عابده كأنك تراه سيدا أديغو أركيا فإن لم تكن تراه أديغ دادا أركين فإنه يراك سغا ياكو أرك ما دام الله سبحانه وتعالى سغو كو أركو وعابد سيدا أديغو أركا وعابد مركا شنت تير الإسلام أركان الإسلام إيو شنت تير لحظة تير إيمانك أو أكوي تبن مركز القدر إحسان الإيمان أو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحيس كن غنيان لبي تبن تير أي اسكن غنيان لبي تبن كاتير باو حال اسكنها أمور الإسلام شن القدر لح القدر حال وحيس كن غنيان لبي تبن كاسيتير هذا دون تنوى تصوغ هابسن كرتا وحدي كرتا haddii lagu weydiiyo maa hiya umuur lislaam umuurta islaamka ii sheeg marka lagu dhaho waxaad dhihi kartaa kow arkaanul islaam oo ka kooban 5 tiir 2 arkaanul iimaan oo 6 tiir sidaan hadda soo baranay 3 ixsaanul iimaan oo ah 1 tiir marka la isku daro maxay isku noqonayaan 5 6 hal 12 kaas ayaa la isku dhahaa umuurul islaam halkan ama kaarkan waxa ku qoran dhamaan casharadii haddaan soo qaadanay sheeg 5 tiir islaamka 1 shahaadada 2 salaada 3 zakada 4 soomka 5 xajka saasaad leedahay carabi inaad ku dhahdaa fiican marka kam arkaanul islaam wamaa hiya arkaanta islaamka waa imisa maxayna tahay 1 arkaanul islaami 5 horta arkaanul islaam waa 5 1 shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muhammadan rasuulullah 2 وإقام الصلاة 3 وإيتاء الزكاة 4 وصوم رمضان 5 وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سيدا إنا كجواب تافعا محيهين تيرارك اللي حداها إسلامك إيمانك قفك مسلمك قفك إنو رمي الله إنو رمي ملائكتيسا إنو رمي بوقتا أما كتاب الله وصدري كتابك القرآن كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنجيل أو كهري أو نبي الله عيسى لسيي توراة أو كهري أو لسيي نبي الله موسى يفر محوها الزبور أو كهري أو لسيي نبي الله داود عليه السلام لما أنتم marka halkan waxaa muhiim ah in ciyaalka lagu baraarujiyo afartaas kitaab ilaahay soo dejiyay maanta waxaa ka yaala dunida quraanka kariimka bas kutubada kale horta marka koowaad lama bahayaba oo way baaba'een waxaan hadda yahuud ay sheeganayaan ama kirishtaanka ay sheeganayaan bibleka iyo towraadan haysana ay leeyihiin waxba kama jiraan waa waxay gacantooda ku qorteen waa laga yaabaa aayad iyo waxyaaba inay ka dambeeyaan laakiin lama hayo waa marka koowaad marka labaadna haddii xataa yaali lahaayeen oo sidii ilaahay usoo dejiyey ay u yaali lahaayeen waxay noqon lahaayeen mansuuq ama wax la nasakhay ama laga tegay macnaa sharci la bedelay oo sharciga lagu bedelay ma lagu shaqayn karaa may sidaa darteed ayayna u shaqeeyeen oo macnaha quraanka bedelay marka laba gooraba ma jiraan weeyaan waxba macnaha lagu amal fali karo mana yaalaan waxay hadda haystaan gaaladana waa waxay gacantooda ku qorteen inta ciyaalka in laga dhaadhiciyo insha Allah taala marka waxaa weeyaan waana diimaha la dhaho diimaha samaawiga ama ahlu kitaabka dadka la dhaho weeyaan dadkaasi macnaha waxaan ka soo haray la sheego buddhism iyo hinduism iyo balaybaska iyo magacyada faraha badan la sheegana waxba kama jiraan waxaas islaamka ma aqoonsanaba diinna ma aha waa iska quraafaad
kuwana saxda ana waqtigoodii dhacay marka laga reebo qur-aanka oo hadda shaqeynayo ilaa qiyaami saaca. Okay, qofka inuu rumeeyo ambiyada alle ama rusushi alle. rusushi alle aad bay u fara badnaayeen marka lama soo koobi karo. iyo in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ahaa nabigii ugu dambeeyey oo nabi ka dambeeya lasoo diray una jiri doonin. in qofka uu rumeeyo maalinka qiyaamaha ee la is xisaabinayo. iyo ugu dambeynta qofka inuu rumeeyo qadaha iyo qadarta alle khayr iyo shar wixii ilaahay u qadaro inuu ku raalli noqdo. أركان الإيمان واللح وهي أن تؤمن بالله إلهي نذر ميسو لبا وملائكتي سادر ميسو صدح وكتبتي سادر ميسو أفر ورسله سادر ميسو شن وباليوم الآخر مالك قيامة نذر ميسو لح وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قدرت على نذر ميسو هلكا وحن كويس سنة شنتي أركان الإسلام يلح ذي أركان الإيمان يقفك مسلم كالغربي يتوبا يسكن قريان حين هراء إحسانك إحسان وامحي إحسان وحويان إن الإلهي وعابده سيدا أذيقه أو أركا حدادا أذيقه أركين أساقا ياكو أركا. إحسان الإيمان واحد وحونا يهي أن تعبد الله إلهي نذو عابده كأنك تراه سيدا أذيقه أو أركا فإن لم تكن تراه ودادا أركين فإنه يراك أساقا ياكو أركا. marka lagu daro shantii arkaanul islaam iyo lixda arkaanul iimaan iyo halkan ixsaanul iimaan marka la isku daro waxay isku noqonayaan 12 waxaa la isku dhahaa umuurul islaam. su-aashan day kugu timaado marka macnaha umuurul islaam waa maxay haddii lagu dhaho ama lagu weydiiyo waxaad uga jawaabi kartaa tafaasiil oo macnaha shantaas hore ee arkaanul islaamka ah iyo lixda iimaan iyo halka ixsaanul iimaan 12 kaasaad isku dari kartaa. waxaad dhihi kartaa waa 12 oo 5 lagu daray 6 lagu daray 1 12 weeyaan dhihi kartaa. halkan waxaa ku qoran qoraal khalad iska dhaafkan si khaldan u qoray marka waxaad dhihi kartaa waa 12 kaas ama si kooban baad uga jawaabi kartaa. waxaad dhihi kartaa waa 3 umuurul islaam waa 3 maxay yihiin umuurul islaami 3 weeyaan maxay kala yihiin 1 arkaanul islaam oo ka kooban dabcan 5 tiir iyo arkaanul iimaan oo ka kooban 6 tiir iyo إحسان الإيمان أو كمان هالتير بدي كرتا. أمور الإسلام 3 أمور الإسلام كوا 3 أركان الإسلام أركان الإيمان iyo إحسان الإيمان. marka aad ay muhiim u yihiin insha allahu tacaala hal mar ayaan marka dul maraynaa qaybta carabiga sababtoo ah waxaa wanaagsan in carabi lagu xifdiyo. كم أركان الإسلام وما هي؟ أركان الإسلام 5 وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. 6 وإيتاء الزكاة. 4 وصوم رمضان. 5 وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان 6 أركان الإيمان واللح أن تؤمن بالله. وملائكته. 6 وكتبه. 4 ورسله. 5 وباليوم الآخر. 6 والقدر خيره وشره أما وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ما هو إحسان الإيمان؟ إحسان الإيمان 1 وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هي أمور الإسلام؟ أمور الإسلام 3 أركان الإسلام. 2 أركان الإيمان. 6 إحسان الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.